بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore aad iyo aad aan idin salaamayaa walaalaheena qiimaha badan meel kasta oo adduunka ka joogtaan. waxaa maalmihii u dambeeyay xoogaa yar gaabis ah uu ku jiray muuqaalada faa'iidada badan ee aan soo dhigno channelkeena, laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa inaan dardar gelino oo aan badino muuqaalada aan soo dhigayno insha Allah. halkan waxaan ka bilaabeynaa silsilad aad iyo aad u qiimo badan oo joogto noo noqon doonta. silsiladan waxaan ugu magac darnay silsilada guryihii nabiga calayhi salaatu wasalaam 10 iyo cibro, yacni barnaamijkan oo maalinba qayb ka mid ah aan ka hadli doono. waxaan ku faaqideynaa oo aan ku fiirinaynaa qaabkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo xaasaskiisii ay u noolaayeen si aan cashiro ugala dhaxbaxno. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa shakhsiyad cadiim ah oo weyn. allah subxaanahu wa tacaala ayaa u doortay inuu noqdo rasuul caalamiinta oo dhan. sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray inaan ku dayano nabigeena calayhi salaatu wasalaam. dhinac kasta ayaa nabigeena looga dayan karaa sala allahu calayhi wasalam. nolosha nabi maxamed uu noolaa marka laga tago waxyiga allah subxaanahu wa tacaala uu kusoo dejinayay, nabi maxamed wuxuu noolaa nolosha dadka caadiga ah ee noolaayeen. bashar ayuu ahaa, bani aadam sida bani aadamka ay u dhaqmaan u noolaadaan u noolaa. saa darteed wuxuu noo yahay mathal iyo tusaale. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa hogaamiye dad soo maamulay, wuxuu ahaa aabe caruur dhalay oo soo tarbiyeeyey, wuxuu ahaa xaasas badan soo guursaday oo la soo dhaqmay oo nolosha nuucyadeeda kala duwan ay isla soo mareen, ha ahaato farxad, ha ahaato xanaaq, ha ahaato kala tag, ha ahaato isku soo noqosho, waxaasoo dhan ay isla soo mareen. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa macallin dad badan wax soo baray. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa saaxiibtinimada wax ka yaqaana oo saaxiibo khaas ah lahaa. jaanib kasta marka aan fiirno nolosha nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa lagala dhexbixi karaa duruus aad iyo aad u badan oo aan nabigeena sala allahu calayhi wasalam uga dayan karno. hadda marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan fiirinaynaa qayb ka mid ah noloshiisii oo ah noloshiisii xaasnimo, noloshiisii qoysnimo, sida nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo xaasaskiisii hooyooyinkii mu'miniinta ee u dhaqmeen. markaas waxaan kala dhexbaxaynaa duruus dadkeena guryaha lehna faa'iido u noqonayso say guryahoodii usii jiraan farxad iyo jacaylna ay ugu noolaadaan. inteena aan reeraha lahaynna kusii tababaraysa noloshaas iyo siday u maamuli lahaayeen iyo siday ula dhaqmi lahaayeen. hooyooyinkiinii ummahatul mu'miniinka ahaa ee nabiga uu qabay calayhi salaatu wasalaam, annaga gabdhaha ah waxayna siinayaan duruus sida reerka loo maamulo, sida caqabadaha iyo azamaadka iyo khilaafaadka loo xalliyo, sida noloshaas loo maareeyo. sidoo kale nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu wiilasha iyo ragga muslimiinta ah siinayaa duruus sida haweenka loola dhaqmo sala allahu calayhi wasalam. nabiga markii la tilmaamayana tilmaantii ugu weyneyd ee lagu tilmaamo waxay ahayd kaana axsanu nnaasi khuluqaa, dadka ayuu ugu dabeecad wanaagsanaa. saa darteed ayaa waxaa halkan ka bilaabeynaa duruus iyo silsilado cashiro ah oo aan ugu talagalnay inaan ku ugu fiirsano noloshii nabiga calayhi salaatu wasalaam. duruustan qaab siiro ama qiso ah ma noqon doonto oo sheeko ahaan uma soo gudbin doono, laakiin qaybo ayaan ka fiirin doonaa xaasaskii nabiga oo dhan. mid kastana waxaan kala dhexbixi doonaa cashiro u noqon doonta qoys kasta oo muslim ah oo dhisan iyo qoys kasta oo muslim ah oo dhismi rababa u noqon doonta waxyaabo ay ku tiirsan yihiin oo guryahoodii ay ku dhisaan. marka wiilka iyo gabadha isguursanaya ay isku dardaarmaan inay soo muraajaceeyaan dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee qoysnimo. qoyskaasi wuxuu noqonayaa qoys ku nool farxad iyo baraare iyo barwaaqo, maadaama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo reerkiisii ay sal uga dhigeen cidda ay ku dayanayaan ama ay ka shidaal qaadanayaan ama xidigaha ay fiirsanayaan. haddaba silsiladan iyo duruustan waxay cashar u tahay laba qof kasta oo raba inay isguursadaan. sida lagula taliyana dadka inteena isguursanin waxaa lagula taliyaa inay bal soo muraajaceeyaan siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam. halkan ayaan kuugu diyaarin doonaa iyadoo xalaqooyin badan ah oo kala duwan iyo mid kasta
duruusta iyo khulaasada aan kala dhex bixi doono. waxaan rajaynayaa inaad ila socon doontaan wixii fikrado iyo faallo ahna qaybta hoose iigu reeb ee commentiska. sidoo kale la wadaag walaalahaada kale, ha noqoto xaaskaada, ha noqoto gabadha aad guursan rabto, ama ha noqoto hadday gabar tahay zawjkeeda ama qofka ee mustaqbalka ka leedahay, si dhammaanteen annagoo shidaal haysana oo reerkii nabiga calayhi salaatu wasalaam sida u dhisay aqoon badan u leh, isla markaana isku dayayna inaan ku dayanno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, aan guryaheenna u dhisno si guryaheennu ay u noqdaan guryo jacayl iyo sacaado ku nool, oo uu u yaraado furiinka iyo kala tagga iyo cuqdada iyo xaasidnimada dhexmarta dadka isguursaday. sidaa daraaddeed fadlan la wadaag dadka kale, asxaabtaada, dadka kuugu dhow, dadkaad isleedahay cashiradan faa'iido tiro badan ayay u leeyihiin. qofka ugu horeeyay ka faa'iidaya waa aniga, idinka iyo inta aad gaarsiisaan. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin, aadna waa idiin salaamayaa. la socod wanaagsan. qaybtan waxay ahayd hordhac yar oo aan uga hadlaynay silsiladaas aan bilaabi doono insha allahu tacaala. aad aa u mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.